بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديشة قيمها قدرينتي قياها مدن ميلكسيد جوجتان halkani waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. saacadu waxay soo gaadhay xilligii soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa naga soo gaadhay. warka waxa diyaar u ah in idin la socodsiiyo anigoo ah Khadar Maxamuud Khadar Qule. qodobada wararka ugu door korona waxa kamid ah wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Abdiweli Sheekh Abdullaahi Suufi ayaa sheegay in rusqadii ay ku shaqeynayeen kala noqdeen shirkadaha kale ah Nation League iyo African Online. wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu heliyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa abaalmarino gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi oo mutaystay shaqo wanaag. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa kormeeray ceelal laga hirgeliyay gobolka Gabiley isla markaasna mishiin ku wareejiyay wakaaladda biyaha ee gobolkaasi Gabiley. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baasha Maxamed Faarax ayaa xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ku qaabilay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo horkacayo maayirka magaaladaasi. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa deegaanka xeeb oo ka tirsan gobolka Awdal ka dhagax dhigay dhismo cusub oo wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ku yeelan doonto deegaankaasi. intaasi waa qodobadii wararka ugu door korona imikii haatana daawadeen wax soo dhawaataan warkaasi oo faahfaahsan. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Abdiweli Sheekh Abdullaahi Suufi ayaa sheegay in rusqadii ay ku shaqeynayeen kala noqdeen shirkadaha kale ah Nation League iyo African Online. wariyahayga Xamse Caydiid Maxamed ayaa warkaasi inoo haya. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Abdiweli Sheekh Abdullaahi Suufi ayaa sheegay in wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ruqsadihii ay dalka kaga howlgalayeen kala noqotay laba shirkadood oo kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka howlgala. wasaaradda isgaarsiinta waxay go'aan ka soo gaadhay inay ruqsadii isgaarsiinta kala noqoto laba shirkadood oo bixin waayay cashuurihii iyo lacagii kale ku waajibay oo ugu horeyso lacagta bixinta ruqsadda isgaarsiinta ama liisanka isgaarsiinta haysteen. labada shirkadood oo kala ah Nation League Telecom iyo African Online muddo sanad iyo baraan u yeedhnay jaraa'idka waan ka baafinay idaacadda laftigeeda waa laga baafiyay iyaga maamulka labada shirkadood waxaan u qornay waraaqo toos oo aan xafiisyadu ku hagaajinay ugu yeedhinay inay maadaan iskana bixiyaan waxa ku waajibay ruqsadda sidoo kale xeerka isgaarsiintu wasaaraddu waxay awood u leedahay in kala noqon karto ruqsadda shirkadda isgaarsiinta ka soo bixi weyday shuruudaha lagu siiyay. iyadana waxaan dib habeen ku sameynay shirkad la yiraahdo Golis Somaliland oo iyaduna liisanka haysata oo aanu iyadana liisankeedii dib habeen ku sameynay. geesta kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Abdiweli Sheekh Abdullaahi Suufi waxa uu fariin adag u diray shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka howlgala. si guud waxaan u sheegayaa shirkadaha isgaarsiinta shirkadii ka soo bixi weyda shuruudaha ruqsadda in lagala noqon doono. bariyahan dib waxa soo batay oo wadanku soo batay in la jebiyay amarkii dawladda sharci dawladda soo saartay $100 wixii ka yar lagu isticmaalo shilinka Soomaaliland kaliya. waxaan uga jeedaa mobile money-ga. marka cabashooyin fara badan soo gaarayay meel kala duwan way ka imanaysay. marka waxaan sheegayaa shirkadaha in si degdeg ah ay jebiyeen ay uga noqdaan. Xamse Caydiid telefishinka qaranka Soomaaliland caasimadda Hargeysa. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa kormeeray ceelal biyo oo laga hirgeliyay gobolka Gabiley isla markaasna mishiin ku wareejiyay wakaaladda biyaha ee gobolkaasi Gabiley. wariyahayga ayaan la xaji ayaa warkaasi Gabiley nooga soo diray. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo subaxnimadiisa ka soo kicitimay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa soo gaadhay magaalada Gabiley caasimadda gobolka Gabiley. ujeedka safarka wasiirka ayaa la xidhiidha soo indheedeynta ceelbiyoodyo ay wasaaraddu ka qoday deegaanka Bator ee biyaha iyo Gabiley si uu u sii kordhiyo biyo soo saarka bulshaduna ay u helaan biyo ku filan. soo kale wasiirku waxa uu kormeer ku tagay ceel kale oo ay wasaaraddu ka hirgelisay banka mashruuca Wajaale oo markii
ugu horeysay la qoday lagana helay biyo macaan. intaasi kadib wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa barasaabka gobolka Gabiley, maayarka magaalada Gabiley, gudoomiyaha Wajaale, maareeyaha wakaalada biyaha iyo madax dhaqameedka gobolka Gabiley ku wareejiyay mashiinkii saddexaad ee bil gudaheed ay wasaaradda ku keento gobolka Gabiley, kaasoo ay la socdaan qalabyo kala duwan iyo bambooyinkii ka caawin lahaa biyo soo saarka. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore. waxaan isleeyahay qalabka iyo ceelasha hadda Victoria Gabiley waqti dheer bay ku filayay hadii systemkeeda dhowr iyo 10 sanadood hadda soo socda way ku filayeen waana qalab ahaan qalab soo jeensanaya ma intaan qalabku soo jeensan un baa loo baahayaa in ninku ka faa'iideeyo oo uu dabeedna horumar badan ka sameeyo waxaanu hadda lacagta u gelinaynaa waa sidaa weey lacag kale oo la leeyahay wasaaradda uu soo transfer garay kamar waxaan rabnaa inay Gabiley isku oo hantida la wareejiyo dadkana wuxuu noqoto umadana wuxuu noqoto Gabileyna waxa leeyahay kulli siyaasi baan ahay de maalinta aan ragis hayno baad ogaan doontaa. soo kale waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha Gabiley, maayarka magaalada Gabiley, gudoomiyaha Wajaale, barasaabka gobolka Gabiley oo wasaaradda biyaha Somaliland ku bogaadiyay doorka ay ku leedahay helitaanka biyo ku filan bulshada. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedka gobolka Gabiley. waayaan la xaji telefishinka qaranka Somaliland. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Somaliland Ahmed Muumin Seed ayaa deegaanka xeeb oo ka tirsan gobolka Awdal ka dhagax dhigay dhismo cusub oo wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ku yeelan doonto deegaankaasi. wariyahayga Cabdisalaan Saaha ayaa warkaasi gobolka Awdal nooga soo diray. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Ahmed Muumin Seed ayaa mishiinada biyaha gaarsiiyay beeralayda ku nool deegaanada xeego ee ka tirsan gobolka Awdal kuwaas oo saameysay duufaantii bishii May ee sanadii la soo dhaafay ku dhufatay qaar ka mid ah gobolada Somaliland. hadasha wareejintani ay goobjoog ka ahaayeen isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolkani Awdal Nimca Maxamed Tubeec iyo agaasimo waaxidyo ka socday wasaaradda beeraha ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka warbixiyay cadadka mishiinadani iyo ujeedada loogu talagalay. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Ahmed Muumin Seed waxaan imika haddan wadna waxa weey waa 40 jiin oo kuwii biyaha ceelasha lagu isticmaali lahaa iyo 40 koogii tuumbo iyo mid walba waxaan u wadnaa 10 mitir oo isaguna tii adkeeda ceelka loogu ridayaa. waxaan isnay intaasi dhiig joojin hoos noqoto ma noqon doonto kulay tii ugu dambeysay waa tii ugu horeysay degmada xeego iyada iskeed u dadaalaysa. waxaan ku faraxsanahay inaad beeralaysiin kulli ujeedka la idinku keenay waxa weeyaan inaad ka faa'iideysataan oo ka qayb qaadataan sidaad wax soo saarka dalka aad kor ugu qaadi lahaydeen. inta kadib waxa iyaguna uga mahad celiyay mishiinadani wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland dadka ku nool deegaanka xeego iyagoona tilmaamay inay baahi weyn u qabeen. deeqda aad noo sitay wixii aad noo sitay ka mid yihiin mishiinada waa waxyaabaha aanu baahida aad iyo aad noogu adkayd inuu intaa in ka badan nala qabtana waan ka codsanaynaa. deeq wixii uu noo sidayna oo mishiinadu ay u horeeyaanna waan ka gudoonay. 40 mishiin ee aad u keenteen guud ahaan degmada xego waxaan u qaybinay xego Badanbed Hadaad iyo Nadhi. dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Ahmed Muumin Seed ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda beeraha deegaanka xeego taasi oo loogu talagalay in kor loogu qaado wax soo saarka beeraha. halka maanta waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii ay ku yeelan wasaaradda horumarinta beeraha degmada xeego maadaama ay degmadu tahay degmo beeraley ah oo xagga beeraha aad ugu wanaagsan waa inaan halkaas uga sameeyno santarkii wasaaradda beeraha ku yeelanay. wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caataye Fariid iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geele ayaa abaalmarin gudoonsiiyay shaqaalaha wasaaradda cadaaladda oo mutaystay shaqo wanaag. wariyahayga Xasan Maxamed Muuse ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. sibadan lagu abaalmariyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale agaasimo waaxidada wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland iyo shaqaalaha la abaalmariyay. ugu horreynkaasi waxa ka hadlay Mawlid Daahir Cali, agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda cadaaladda, waxaanu ka warramay tirada shaqaalaha ee la abaalmarinayo halka sidoo kalena uu sharaxay waxyaabaha ay ku mutaysteen abaalmarintan. shaqaalaha la qiimeeyo tiradoodu waa 16 qof 14 kamid ah waxay kamid yihiin 9 kooxood ee ka kooban tahay wasaaradda cadaaladdu haddii xarunta tahay iyo haddii gobolada tahay iyo waxa ku jira labo
dadka kale inala shaqeeya hadday yihiin security-ga. Sharmarka Axmed Maxamed Geelle gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Somaliland ayaa bogaadiyay shaqaalahan la abaalmariyay halka sidoo kalena uu sheegay inay gacanta ku hayaan siyaasadda abaalmarinta qaran ee shaqaalaha dawladda. maanta runtii waa maalin farxad weyn in aad iskugu timaadaan idinkoo is abaalmarinaya isla farxaya shaqadii wanaagsaneed ee qaranka aynu u haynay dhammaanteen iskugu hambalyeynayna inaynu soo dhameynay muddo badan waynu soo shaqeynay sidoo kale tiro inaga midana tartankii qiimeynta ahaa ee wasaaradda dhexdeeda ka socday aad u garateen inay yihiin dadka idinku horeeya mudan inaydan u hambalyeysaan anagoo hay'adda shaqaalaha dawladda aad baan ugu faraxsanahay runtii. Cabdiqani Maxamuud Caate iyo Fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa halkaasi erey ka jeediyay. waxay soo galeen 7:15 waxay ka baxaan wasaaradda cadaaladda koodiya barka marka haddaan wasaaradda cadaalad ahaan soo qaadnana waxa weeyaan intooda badan 80% waxaan oran karnaa waa sharci yaqaano marka wasaaradda cadaaladda dadka jooga waa dad aqoon u leh iyaguna intii ilaahay garansiiyay ku waajibka ahayd ka soo baxay. mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa loo qaybiyay xeerka xawaaladaha kaasi oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaaluhuna ka warbixiyay sidoo warkaasi nagu hayo Xamse Qurbaani. fadhigan uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Baashi Maxamed Faarax waxa golaha warbixin ka siiyay xeerka xawaaladaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada kadib markii mudanayaasha golaha si loo qaybiyay xeerka qabiyo qoraalka. guddigu isagoo waajibaadkiisa gudanaya waxay qaateen kulan wadaag lagu gorfeelayo xeerarka xawaaladaha oo qabsoomay taariikhdu markay ahayd 27 November 2018. gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland mudane Baashi Maxamed Faarax ayaa kulan kula yeeshay xarunta golaha wakiilada Somaliland xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi Burco warkaasi oo faahfaahsan waxaynu hayaa wariyahayga Xamse Qurbaani. gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashi Maxamed Faarax ayaa xarunta golaha wakiilada ku qaabilay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Burco oo horkacaya maayarka magaaladaasi waxaana uu ka waramay nuxurka kulankaasi dhexmaray xildhibaanada golaha deegaanka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxay ka cabanayaan waxa weeye waa cashuuro iyo wax la mida wixii ay ka cabanayeen waa loo soo gudbiyeen xeerkii gacanta lagu hayaa marka taasaanu ka wada hadlanay waxaanu ka cabanaynay horaanu yaanu soo gudbinay qoraalna waa ku gudbinay ayaguna gacanta lagu hayaa xeerkii midna waa lagu samaynayaa waxay noo ballan qaadeen. wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Somaliland ayaa daahfurtay dugsi loogu talagalay ardayda aragga naafada ka wariyahayga Jacfar Axmed Bade ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro tiro badan oo isugu jira hablayo inama ka mid ah ardayda aragga naafada ka ah ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa lagu daafuray dugsi ay yeelan doonaan ardayda aragga naafada ka ah taasi oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee magaalada Hargeysa. dugsigan oo ay hirgelisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ugu horreynba waxa madashaasi ka hadlay agaasinka waaxda baahiyaha gaarka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Mr. Cabdishakuur oo ku dheeraaday ahmiyadda wasaaraddu ay siisay dugsigan. maanta ujeedadan halkan sugu nimidnay waxa weeyaan inaynu furno dugsigii dadka baahida indhaha kale ee Hargeysa. sidoo kale Iid Xasan Khayr oo ah maamulaha dugsigaasi uu yeelan doono iyo Mawlid Odowa ka mid ah ardaydii hore uga baxday dugsiyada sare ee ardayda aragga naafada ka ah ayaa iyana u mahadnaqay wasaaradda waxbarashada waxaana ka warameen baahida dugsigan uu ka dabooli doono dadka aragga naafada ka ah. mar labaadna wasaaradda waxbarashada oo madaxdeedu ay hogaaminayso inaan uga mahadnaqno maanta ayaa ahmiyadeedu ay tahay 2013 ayaa anagoo ka mid ahayn ardaydii ugu horeysay ee dugsigaas iska xaadirisay aniga iyo runtii ninka halka fadhiya igu xiga iyo dhowr qof oo kale 2013 waanu ka qalin jibino dugsigaanu ka baxnay annagu markaa maanta waxaanu ka mid nahay dadka bulshada runtii qaybtooda ka dhinacooda ka raacay haday maxaan ku raashay shaqo noqoto shaqaysta anigu shaqaale dawladeed baan ahay ninkaas waa macallin 3 qof oo 4 qof oo maalintaan imtixaan ku wada galay 3na waa macallimiin ana shaqaale dawladeed baan wasaaradda warfaafinta u shaqeeya. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Abubakar Maxamed ayaa isna tilmaamay in arrintani ay farxad gaar ah u tahay guud ahaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. naafanimadu ma aha oo darama dhamaanteen oo ognahay marka anagu hadaan wasaaradda waxbarashada nahay
qofka naafada iyo ardayga naafada ahayn labadu way noo sameeyeen marka wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maxamed daahir axmed ayaa isna sheegay in ay wasaaraddu iska xil saartay inay dugsigan hirgeliso islamarkaasina looga baahan yahay bulshada reer somalilan ee ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba in ay ka qayb qaataan sidii taageero ay u geysan lahaayeen dhaqaalaha in iskuulkan dib ugu furnay waa dhaqaale miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda waxbarashada looga allocate gareeyay amba looga soo maxay saaray qaybtan maxay iskuulka xuquuqda ay leeyihiin dadka indhaha qaba ayaad idinkuna leedahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa tababaro furay saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Xasan Shaah ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya tababarkan oo lagu qabtay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabsay hay'adda Oxium oo waxa ka soo qayb galay saraakiil ka kala socda ciidamada booliska badda iyo sidoo kale ciidanka asluubta kuwaas oo lagu tababarayay hawlahooda shaqo ugu horeyna waxa halkaasi hadal ka jeediyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo xusay in tababarkan yahay mid muhiim u ah dhammaanba waxyaha kala duwan ee ciidamada halkan isku waxa weeyaan hawsha nabadgelyada sidaan kor u qaadi lahayn xiriirkeen u wanaagsanaan lahaa aynu u wada shaqeyn hal tiim noqon lahayn isla markaana waxaan halkan isla u daadajin lahayn ciidamada iyo cidii inaga tala qaadata marka wuxuu aan hadalka u kahay inaan ereyga opening walaal ka dhawaaqo hadii la yiraahdo geesta kalena waxa halkaasi hadal dhinacyo badan taabanaya ka jeediyay agaasimaha guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Master Mukhtaar oo xusay in hadda kadib ay diiwaan gelinayaan dhacdooyinka la xiriira arrimaha waaqiciga ah ee ku saabsan amniga geesta kalena waxa halkaasi hadal ka jeediyay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska Somaliland Sarreeye Guuto Daahir Cali Wacays waxa kale oo munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka kala socotay hay'adda Oxium iyo taliyeyaasha kala duwan ciidamada qalabka sida ee Somaliland muhiimadu waxay tahay imika wasaaraddu report awal maanu hayno reportka lagama sameyn jirin analysis ama reportada dhacdooyinka maalinlaha ah laakiin waxaanu bilownay inaanu sameeyno reportada laftirkooda inaan ku sameeyno analysis marka ruuxantii anagu ciidan ahaan shirkan ahmiyad weyn ayuu anaga loo leeyahay guud ahaan bay leeyahay haddana kulli anaga siiba maadaama ciidan gudiska nahay ahmiyad weyn buu leeyahay waa wada shaqeynaa runtii hay'adahan ka soo qayb galay wuxuu amniga waa wada shaqeynaa taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliska Somaliland Sarreeye Guuto Daahir Cali Wacays ayaa tababaro furay kontar sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska Somaliland tababarkaasi oo ka furmay xarunta jaamacadda Hargeysa wariyahayga Xasan Shaah ayaa warkaasi inoo sii faahfaahinaya munaasabadan tababarka oo lagu qabtay xarunta jaamacadda Hargeysa waxa ugu horeyn ka hadlay hoggaanka tababarada ee ciidanka booliska Somaliland oo xusay in arrimaha qaxoontigu ay yihiin kuwo muhiim ah in lagu tababaro saraakiishan ciidanka booliska ee Somaliland hadalkiisina waxa kamid ahaa waxa sharaf inoo ah halkan saaka inaynu isugu nimaadno ka soo wada qayb galno seminaarka loo furayo konton sarkaal oo ciidanka booliska oo imika horteena fadhiya kuwaasoo halkan saaka lagu barayo faahfaahinta xeerarka qaxootiga iyo heshiisyada caalamiga ah ama qaxooti ha ahaato ama ha ahaato magangeliyo doon siiba qaxootiga iyo magangeliyo doonku marka ay ku taxalluuqaan dambiyo ay galeen oo booliisku baarayo geesta kalena taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska Somaliland Sarreeye Guuto Daahir Cali Wacays ayaa isaguna halkaasi hadallo munaasabadaasi la xidhiidha ka jeediyay aalami ahaan waxaan arrinkaa dawladuhu haysla garteen oo Somaliland ay waafaqday in si wanaagsan arrintaas aan u raacno aan soo dhaweyno ka qaxootiga dejino intii awooddeena inagoo boosaska loo marayo hay'adaha caawiyo maxay ahaydeen dadka dhibaataysan iyo kuwa maangelidoonkaaba marka waa faa'iido badan ba ku jirta wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad loo sameeyay dufcadii labaad ee dhameysata culumta ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan wariyahayga Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa ujeedadoodu ahayd mid ay ku qalan jebinayeen dufcadii labaad ee ka baxda kulliyadda caafimaadka ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan oo ka koobnaa 20 arday ugu horan waxa halkaasi ka hadlay Dr. Mahdi Cabdi oo ah hormuudka kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan waxaad cadeyseen oo noo muujiseen inaad tihiin dad wax la bari karo xirfadiinu waxay soo baxaysaa markii aad magaalada gashiin oo dadkii aad adeegiin aad u gashiin gudoomiyaha jaamacadda Adna Aadan University Professor Maxamed Mixilla Boqorre ayaa sheegay tirada ardayda ka qalan jebinaysa kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan iyo tacabka la geliyay muddada ay wax baranayeen ardaydaasi waxay baranayeen aqoonta ilkaha ayay baranayeen muddo 5 sannadood qaar kamid ah ardaydii ka qalan jebinaysa kulliyadaasi waalidiin waxgarad ayaa soo dhaweeyay jaamacadda Adna Aadan ka waramay kaalinta muhiimka ah ee ugu jirto bulshada Soomaaliland marwa Adna Aadan Ismaaciil asaasaha dhakhtarka Adna Aadan iyo jaamacadda Adna Aadan University ayaa ka hadashay dhibaatada cudurrada ku dhacay ilkaha iyo caafimaadintooda mudanayaal waxaynu ognahay ilkaheenu cadow badan buu leeyahay waxba cadow bay leeyihiin ilkaheena waxa u cadow ah nafaqo darro waxaan garanayaa awoowayaasheen fool ama kaga dhaca nabar ka gaaro oo jaba oo kufa ama dakhar ama dagaal ka rida moogiye ilgahoodu wax cadcad bay ahaayeen dad baad arkaysaa dhinacna cad yahay dhinacna madoobaaday uu soo daatay maxay ku tusaysaa wixii dhinaca madoobeeyay ayaa dhinaca lagu cuni jiray agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Axmed Muuse iyo agaasimaha guud ee macadka shaqaalaha dawladda guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in Adna Aadan ay ka mid tahay wax soo saarka aqoon-yahan tayo leh oo ku takhasusay caafimaadka isla markaana wax tar u leh bulshada reer Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Naasir Cumar Jaamac adeegyada caafimaad ee qaran ahaan aynu haysano ee wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka ay uga mas'uulka tahay la'aanteed ma qabsoomeen mana suurta galeen haddii aanay contribution iyo support iyo fikrado cusub aanay ku soo kordhin lahayn Adna Aadan Ismaaciil gabadhii waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii ka qalan jebisay kulliyadda ilkaha ee jaamacadda Adna Aadan Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolkaasi wariyahayga Khaliil Barraawraan ayaa warkaasi Burcaan nooga soo diray gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa kulankii toddobaadlaha la qaatay isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer waxaana kulankan uu ka qabsoomay xafiiska maamulka gobolka Togdheer iyadoo intii uu socday kulankaasi si qoto dheer looga hadlay xaaladda abaareed iyo biyo la'aanta ka soo cusboonaaday deegaanada xukuumadda gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaale ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan gurbad u sameyn doonaan dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada xukuumadda gobolka Togdheer maanta waxa ay isniin bisha ay tahay waxaan noo qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee isuduwayaasha runtii shirka waxaan kaga hadlaynay xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka ay koow ka tahay biyo la'aanta baahsan waxaan isku xogaal wareysanay wasaarad walba wixii maaragtay dhowrkii isniinood aan kala maqnay wixii ku soo kordhay waxaan noogu qabsoomay shirkaasi jawi degan oo isafgarada waxaan isla garanay inaan heegan buuxa u gallo sidii maaragtay aan ula socon lahayn xaaladda abaareed ee nagu soo foolayay biyo la'aanta markaa runtii shirkaygu intaas uu ku saabsanaa Khaliil Barraawraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco gudoomiyaha degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodijeex ayaa deeq booyada biyo gaarsiiyay deegaamada kala duwan ee hoos yimaada degmada Dar es Salaam wariyahayga Xamse Caydiid ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa deeq biyo dhaamis gaarsiiyay deegaano kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Dar es Salaam iyagoo dhinaca kalena kormeer ku soo maray qaybo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Dar es Salaam oo ay ku urgalayaan xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanadaasi gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Ciise Muuse Axmed oo ka hadlay madal uu ku wareejinayay deeq biyaad bulshada ku dhaqan deegaanka Balliga Cas oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Dar es Salaam ayaa sheegay in deeqdan tahay mid loogu talagalay in la gaarsiiyo bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxaynu joognaa inaanu maanta idinku wareejino 5 booyadood oo aan ugu talagalnay inaanu kaga jawaabno baaqii qayla dhaanta ahaa ee aad noo soo dirteen tuulooyinkan qaybta bariga ee deegaanada Balliga Cas ilmaha iyo wixii
xoolo daaqeenku ay dadka xoolo daaqeenka dhulkii ay joogeen waxaan anagu degmo ahaan intii taalkaya waxaanu jecelnahay mar walba wixii baahiya ee macquula ee biyuhu ugu horeeyaan in dadka waxa weeye lala soo gaadho isuduwaha wasaaradda beeraha ee degmada Daarasalaam ayaa ka warramay muhiimadda ay deeqdan u yeelan doonto bulshada ku dhaqan deegaankaasi madaxa degmada Daarasalaam u qaabilsan deegaanka Balliga Cas oo deeqdan gudoomay ayaa sheegay in deeqdan wax weyn u tari doonto bulshada ku dhaqan deegaanka Balliga Cas iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha degmada Daarasalaam iyo wafdigu hogaaminayo ayaa cabasho la xidhiidhay ceelal biyoodyo ku yaala deegaanka Annayo ka tirsan degmada Daarasalaam ka dhageystay waxgaradka iyo qaybo kamid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi gudoomiyaha degmada Daarasalaam Ciise Muuse Axmed oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in si dhaqso ah loo xalin doono loona soo afjari doono cabashada ka taagan ceelashan biyaha ee ku yaala deegaankaasi wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku tagtay deegaamada kala duwan ee hoos yimaada gobolkaasi Gabiley wariyahayaga nooga soo warama gobolka Gabiley ayaa la xaaji ayaa warkaasi noo soo diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Gabiley oo u koorgalaysa iskuul walba sida uu yahay iyo shaqada ka socota ayaa saaka arooriyadii hore waxay ka anbabixeen xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Gabiley waxaana mas'uuliyiintan oo hogaaminaya gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley ay u kala jarmaadeen dhinaca oogada iyo dhinaca waqooyi ee gobolka Gabiley waxaana mid ugu hakadeen dugsiyada deegaanada gobolka ee ay marayeen si loo hubiyo hanaanka barbaarta wax loo barayo iyo habsami socodka howlaha shaqo ee dugsiyada dawliga waxaana uu kormeerkani socon doonaa muddo 4 caanamaala waxaana isla maantaba la soo kormeeray ku dhawaad 20 iskuul waxaana ka warbixinaya gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley Cabdilqaadir Cabdilaahi Jaamac waxaan saaka arooriyo hore ka boqolay xafiiska waxbarashada ee gobolka iyadoo 2 tiim aan ugu kala baxnay guud ahaan dugsiyada waxbarashada gobolka Gabiley ka kooban yahay oo aanu waxa weeyaan لا مداوين قلبيات كتكتا بريا كتمادا أنا كوكا قايبنا وحي أوجا كحجنا أي تيم كوبحين وحي وقوي كحجنا أي تيم كلا كوصابحين ساعة واحد كصاب لوني دوسيجا لعاد بان كصاب لوني واحد صام مرنا دوسيجا لحد بان فليا حوالي أنت دوسيجا ساعة عين مرني عندما تودي يجوا شقيني حوالي aynu ku soo kormeernay shaqadeen ku soo kormeernay xaalad wadanka oo dhan ka socota oo loo korgulaya bal iskuul walba sidoo yahay hadii kale waxa weeyaan dadkiisu wax la qaybsanay taa weeyaan ay wasaaraddu ka duulaysaa inuu qofku noqdo wax jira oo aqoon leh oo wadankan iyo dalkan iyo dadkan iyo diintan ba afcaya la doonaya kale waxa halkaasi ka hadlay bulshada qiimaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada ku teedsan gobolka Gabiley una mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waa la xaji telefishinka qaranka Gabiley xubno iskugu jira xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa ka qayb galay furitaanka qaybta labaad ee hotelka Boodale furitaanka qaybtan cusub ee Boodale oo laga geliyay xaafadda Jigjigeer ee degmada Ibrahim Koobur waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan aqalka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland saraakiisha kala duwan ee ciidamada kala duwan ee Soomaaliland mas'uuliyiin salaadiin waxgarad dhalinyaro iyo marshaf aad u tiro badan harimo sharafeedka Boodale kadib halkaasi waxa mas'uuliyiinta iyo waliba marshaf ka soo qayb galeen ay tilmaameen muhiimadda uu leeyahay hotelkan ee caasimadda Soomaaliya Hargeysa iyagoo sidoo kalena u mahadnaqay mulkiilayaasha Boodale waxaana ay ku amaaneen dadaalka ay ka sameeyeen dalka Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa inamada dhalinyarada ah ee hotelkan furay ee haddana ku soo dhaweeyay dadweynihii reer Hargeysa ee casuumadda caalamiga ah ka sameeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa fikirkan cidii keentay iyo hadii ahlaabo ku lahayd waxaan aad u hambalyeynaa dhalinyarada ee furay hotelkan Boodale tiri qaybtii saddexaad ee Boodale kabtanka Mustafa Dhamac inuu aad u hambalyeynaa waan ku dhiirigelinaa hambalyo Mustafa Dhamac marka waa wax wanaagsan waa bilic ummadda af Soomaaliga ku hadasha meel kasta ay joogtaan waa isku mid waxaan ugu sameeynaa waa dhaqankii geela Boodale anagu la kala macaamilka baan ahay Boodale waan ka qadeeyaa Boodale tuu boqol ka tukaa waan ka qadeeyaa xaafadaydu waa Jigjigeer way soo dhawaatay marka warkii
oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta qiimaha qadarinta ee qayaha mudan meel kasta idin joogtaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa warka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule warkani war lamida intaan kulmi doono dhankayga waxaan idinkaga tagayaa tusan iyo toobada Alle